waxaan halkan isku nimidnay saaka ujeedka guud aan meeshan isku nimidnay waxa weeyaan la xajalo guud oo aanu ka qabno Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan cadeynaynaa nabadgelyada guud ee gobolku inay sugan tahay wax carqalad Soomaaliland ku ah ma jirto waqtigan imika diyaarna arrinka uma nihin Soomaaliland la xajalo badan baan u leenahay way Soomaaliland annaka ayaa dhisnay iskuulkii aan ku dhisnay Sheekh Ali Jawhar uu nagu dhow yahay 1 kiiloomitir inoo ma jiro administration-kii iyo nidaamkii aanu dhisnay 12 sano ka hor maanta annagu inaanu gacanteeda ku burburino diyaar uma nihin dadkan halkan degan ama bulshada gobolka awdal waxa weey hoyga nabadgelyada dadka aan la deganahay ama wadanka la leenahayna wax carqalada oo nabadgelyada kullidiya ma rabno inay ka timaado la xajaladan anaga uga badan dadka oo wadaagtanahayna waxaanu aaminsanahay inaanu maamul ahaan iyo dawlad ahaan baa aan wada noolaan doono wada dhisan doono inta xaggan waxaan ka hor lahaa guud ahaan gobolka iyo Soomaaliland guud ahaan waxaan laba eray ka oran lahaa marka qoliyaha dhawaan Canada shirarka ku qabtay isku magacaabay Outer State Movement oo loo dhiibay marka mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta deegaankan aan gobolka Awdal ka soo jeedno mas'uuliyiinta waxaan u leenahay marka idinku Canada qaxooti baad ku tihiin laakiin anagu muwaadiniin baan nahay dhulkoogii degan idinku kaar qaxooti oo identity tool ay dhaabad ku joogtaan laakiin anagu identity one baan haysanaa gobolkii ku joognaa ninkii nabadan iyo nolosha maanta carqaladii inuu keeno doonayo annaga qacan bira ku qabsan doona una diyaara wixii nabadeeda iyo nolosheeda carqalad gelinaya annaga dawladda ugu horeynaba wareerna nabadgelyadu waa shay qaali ah ka macaan caanaha ka macaan malabkana haddii nabadgelyada la ilaalin waayo nina noloshiisu ma habboonaanayso we need peaceful place ninka doonaya inuu nabadgelyada ku ciyaaro inteedaasu ka soo jeednaa meeshii mahalaase waanu ka soo horjeednaa aduguna nolosha aad maanta joogtid nolol aad qurux badan weeyaan inaad hore u sii socotid maaha inaad dib u socotid maaha hadalka anoo soo gaabinaya waxaan leeyahay ninka noqonaya rebel ama against government waanu kuwa soo horjeednaa annagu waxaanu had iyo jeer ilaalinaynaa nabadgelyaduna waa shay qaali ah waxaan halkan isku nimidnay saaka ujeedka guud aan meeshan isku nimidnay waxa weeyaan la xajalo guud oo aanu ka qabno Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan cadeynaynaa nabadgelyada guud ee gobolku inay sugan tahay wax carqalad Soomaaliland ku ah ma jirto waqtigan imika diyaarna arrinka uma nihin Soomaaliland la xajalo badan baan u leenahay way Soomaaliland annaka ayaa dhisnay iskuulkii aan ku dhisnay Sheekh Ali Jawhar uu nagu dhow yahay 1 kiiloomitir inoo ma jiro administration-kii iyo nidaamkii aanu dhisnay 12 sano ka hor maanta annagu inaanu gacanteeda ku burburino diyaar uma nihin dadkan halkan degan ama bulshada gobolka Awdal waxa weey hoyga nabadgelyada dadka aan la deganahay ama wadanka la leenahayna wax carqalada oo nabadgelyada kullidiya ma rabno inay ka timaado la xajaladan anaga uga badan dadka oo wadaagtanahayna waxaanu aaminsanahay inaanu maamul ahaan iyo dawlad ahaan baa aan wada noolaan doono wada dhisan doono inta xaggan waxaan ka hor lahaa guud ahaan gobolka iyo Soomaaliland guud ahaan waxaan laba eray ka oran lahaa marka qoliyaha dhawaan Canada shirarka ku qabtay isku magacaabay Outer State Movement oo loo dhiibay marka mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta deegaankan aan gobolka Awdal ka soo jeedno mas'uuliyiinta waxaan u leenahay marka idinku Canada qaxooti baad ku tihiin laakiin anagu muwaadiniin baan nahay dhulkoogii degan idinku kaar qaxooti oo identity tool ay dhaabad ku joogtaan laakiin anagu identity one baan haysanaa gobolkii ku joognaa ninkii nabadan iyo nolosha maanta carqaladii inuu keeno doonayo annaga qacan bira ku qabsan doona una diyaara wixii nabadeeda iyo nolosheeda carqalad gelinaya annaga dawladda ugu horeynaba wareerna nabadgelyadu waa shay qaali ah ka macaan caanaha ka macaan malabkana haddii nabadgelyada la ilaalin waayo nina noloshiisu ma habboonaanayso we need peaceful place ninka doonaya inuu nabadgelyada ku ciyaaro inteedaasu ka soo jeednaa
باشا محلاس وأنا كسر كنا أدونا نوش أدمات تشوكتيت نلا أدغرف بدوين إن أثروسي سعتين ما هنا دي سعتين معها هذا كانوا سوق عبنايا وحلا هاي نكا نقولنا ريبل أما against government ونكون سهر كنا أنا كوا حنو هذه يشتري لنا نبت جريدة هو شيء غالية مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدأ عصون فور تي في كاس أو ركود دنبي يا سومالي دا يا عالم كذا إصدح لقى أي دعيا بدأ عصون فور تي في سوكل واحد نجلس عن كتاب برا هيجا بوشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيدا نقطة قف كوجو ريا داودا مقالة دا أن سوقلنا فضلا سبسكرايب صار جنبلا الريق برتي دا يوتيوب sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso